qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga talada dalka ee kulmiye ayaa qada sharaf ku maamusay xogayaha cusub ee xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga talada dalka ee kulmiye Nagiib Cismaan. qada sharaftan oo ka dhacday hotel Baraar ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye xubno ka socda xukuumadda Soomaaliland mudan iyo marti sharaf kale. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay xogayaha xisbiga kulmiye iyo afayeenka xisbigaasi wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo xubno kale waxaana si ballaaran u soo dhaweeyeen xogayaha cusub ee xiriirka gobolada iyo degmooyinka dalka ee xisbiga kulmiye. munaasabadu waa munaasabad aynu ujeedadeeda garanayno waxaynu ku soo dhaweynaynaa isaal inoo sheegayba xogayaha cusub ee xiriirka gobolada iyo degmooyinka Nagiib runtii waxaan ku leenahay walaal ku soo dhawow bahda xisbiga kulmiye oo runtii de xisbi fac weyn oo gumbalaaran oo madrasad runtii jaamacad siyaasadeeda xisbigu in cid kastaaba timaado waa meeqaamka uu taagan yahay marka koowaad iyo mar horeba iyo imika intii ka horeysayba Nagiib wuxuu ahaa xisbiga kulmiye. Nagiib maanta muu ahayn nin maanta inta loo yimid haddana maanta la magacaabay balse marka hore wuxuu soo ahaan jiray master of all oo hawlaha xisbiga ee kala duwan marba meel kaga jiray. waa nin aan ku aqaano dakarnimo waxaan leeyahay Nagiib waxaa timid xisbi ballaaran oo waxa weeyaan nidaam leh oo bahweynta Soomaaliland oo dhani ku midaysan tahay ku soo dhawow waana ku barbar taaganahay waana kula shaqeynaynaa. Nagiib waxaynu ugu duceynaynaa in Ilaahay ku astiro xilka ama mas'uuliyadda culus ee la saaray xogayaha gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga nabadda iyo midnimada iyo horumarka iyo horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliland ee xisbiga kulmiye. aad iyo aad baan runtii Nagiib soo dhaweynaynaa. waa munaasabad u reeban runtii soo dhaweynta xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga kulmiye Mr. Nagiib oo uu harimo sharafeedkana ku maamusay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. xisbi ahaan farxad bay noo tahay inaanu ka soo qayb galno. xisbi ahaan sharaf iyo karaamay noo tahay in la magacaabo waxa weeye mid ka mid ahaa awalba akaadirtii xisbiga kulmiye hore u tartamay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. magacaabistiisa loo magacaabay gudoomiyaha gobolada iyo degmooyinka runtii aad baan ugu farxay. aqoonta aan u leeyahay Nagiib waa nin gudan kara xilka maanta loo magacaabay kana soo bixi kara. aad baan ugu soo dhaweynayaa. waa soo dhaweynaynaa isaga iyo xogayaasha kaleba sida xeerku dhigayo xisbigu waxa weeyaan waynu u baahannahay waqtigan waliba xasaasiga ah shaqada badan inoo taalo aad baynu ugu baahannahay waana soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay marka hore Nagiibow xilka lagu magacaabay ee xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka waa xil aad u qalanto ka iyo mid ka sareeyaba waxaad ka dhex muuqataa xisbiga kulmiye. aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa. waxaan leenahay kula shaqeyn doonaa. ma sha Allah tabaarakallah. waxaan u hambaliyeynayaa inanka caasimada ballaaran noo sameeyay iyo inanka loo sameeyay Nagiib xisbiga kulmiye. runtii horena waad ugu jirtay haddana xil baad ka qabatay. aad iyo aad baan kuugu mahad celinaynaa waan kugu soo dhaweynaynaa. xaqiiqatan gudoomiyahayagiyo haddana wasiir ku-xigeenna uu joogaa golaha dhexe. xisbiga kulmiye waa xisbi aad iyo aad u qiimo badan. waa xisbi xaqiiqatan markan ka hadla haweenkiisu yihiin walaalo. gabagabadii isaguna waxaa halkaasi ka hadlay siyaasi Nagiib xogayaha cusub ee xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga kulmiye isagoona uga mahad celiyay mas'uuliyiintaasi kala duwan qada sharaftaasi ay u sameeyeen. waan idinka gudoomay soo dhaweynta qiimaha leh ee sharafta badan ee runtii uuna budhiga u yahay agaasimaha guud. dhammaantiin waan idinka gudoomay. كل حلقان وحي كتم بيا وحن با إنك ده حيسا وده شقين بدن إنه أباب البدن إيوه وده شقين بدن إنه قالله إنه حس بيجانا سينو كربوسي قادر هين أو سنة وقت يدم بيت ورشاد دم بيت صوص عطنا ورنمنا وقبح لها حس بينه نقول لها مدحوينها جمهورية الصومال لأنه ودبوا صار نقول لها شكذا مدحوين لماذا
ayuun baynu dhowaan haddii ilaahay yidhaahdo sidii aynu u qaban qaabin lahayn usii gelaynaa. Maxamed Wardi, warbaahinta qaranka Somaliland, Hargeysa.